بسم الله الرحمن الرحيم جمعة وناكسن وتضبية طبنك بشا أبريل سنة كاللبكن لباتن يلح أو كوبهجن سقال يلباتنك بشا شوال سنة كون أفر بقول أفرتن يتضبا تاريخ ده هجريد كسو دوادا مركله يبرامجكي xulashada wararka qodobada saaka barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah Turkiga iyo Masar ayaa wada qorshe isbahaysi military oo ay kaga hortagayaan Israa'iil iyadoo ay socdaan isdhaafsiga khubaro military oo labada dhinac ah Iran oo soo dhaweysay heshiiska xabad joojinta ee looga dhawaaqay Lebanon kaas oo ay ku sheegtay in uu qayb ka yahay shuruudihii ay ku xirtay kulan labaad oo ay la yeeshaan Mareykanka faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa heshiiskaasi xabad joojinta Lebanon iyadoo lagu wado in aqalka cad ay ku kulmaan madaxweynaha Lebanon iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil inkastoo xalay iyo saaka la soo warinayo weeraro inay dhaceen Hezbollah oo war ka soo saartay heshiiskan xabad joojinta dalalka Yurub ee NATO ka mid ah ayaa iyaguna waxay wadaan qorshe ay ku samaysanayaan isbahaysi ciidan oo ah NATO-da Yurub si looga gaashaanto haddii Trump uu ka baxo xulafada reer galbeedka oo xilligan aad u dhaliilayo kadib markii ay ka biyo diideen inay ka qayb qaataan dagaalka Iran dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka soo dhawaada mar kale daawadayaal jumca mubaarak meel walba aad joogtaan si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka intaanan u gudbin wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Lebanon iyo xaaladda bariga dhexe waxaynu ka hormaraynaa isbahaysiyo ayaa adduunka si weyn ugu soo kordhaya adduunyada waxay noqotay buur ahow ama buur ku tiirsanow haddii ay noqon lahayd Yurub haddii ay noqon lahayd dhankan iyo Latin America haddii ay noqon lahayd bariga fog bariga dhexe intaba waxaa socda isbahaysiyo ballaaran waxaa leeyahay adduunkan cid kaligeed gaar u istaagnaan kartaa ma jirto haddii aysan jirin cid ay ku tiirsan tahay dhawaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuu sheegay waa intii dagaalkan bariga dhexe ka socday 40 maalmood uusan bilaaban in ay ku tala jiraan inay salka gooyaan sida hadalku u yiri shiicada mayalka adag kadibna wuxuu yiri waxaan u soo jeesan doonaa sunniyiinta mayalka adag xilligaas muusan carrabaabin cidda uu wajahayo laakiin waxaa loo qaatay arrinta inay tahay arrin ku fool leh wadamada sunniyiinta ee gobolka bariga dhexe Turkiga Masar ayaa hadda waxay sameynayaan isbahaysi waxa leeyahay sidoo kale waxa qayb ka noqon kara Sacuudiga iyo Qatar Sacuudiga asagoo buurbu isku tiiriyay oo Pakistan ayuu isku tiiriyay bacdama Pakistan ay haysato nuclear heshiiskii bishii September la galay wuxuu dhigayaa haddii Sacuudiga la soo weeraro Pakistan baa la soo weeraro bishan gudaheeda 13,000 oo askari oo Pakistaaniyiin ah iyo diyaaradaha dagaalka ayaa la keenay waddanka Sacuudiga xaaladdu marka waxay maraysaa isbeddello waaweyn waxa kaloo suurtagal ah Turkiga inuu ku biiro isbahaysigaasi laakiin hadda arrintu waxay maraysaa Masar iyo Sacuudiga haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amurahan la xiriira madaxweynayaasha Turkiga iyo Masar Recep Tayyip Erdogan iyo Abdul Fattah al-Sisi ayaa bilaabay marxalad cusub oo xiriir oo lagu tilmaamay mid taariikhi ah kadib isweydaarsi heer sare ah oo military iyo wadatashi difaac oo qoto dheer oo u dhaxeeya labada dal wararka ka imaanaya caasimadda Turkiga ee Ankara ayaa muujinaya in labada madaxtooye ay wadaan wadahadallo istiraatiiji ah oo lagu doonayo in lagu dhiso heshiisyo difaac iyo military oo ballaaran si loo mideeyo mowqifyada labada dal marxaladda soo socota ila ku dhow xisbiga talada haya ee dalka Turkiga ee magaciisa loo soo gaabiyo AKP ayaa sheegay in qorshuhu uu yahay in wadahadalladan loo gudbiyo
guddiyada baarlamaanka dalka Turkiga ee qaabilsan difaaca amniga iyo sirdoonka taas oo muujinaysa in wadahadalka military uu u wareegayo heer hay-adeed oo qoto dheer dhinaca kale madaxtooyada Masar ayaa muujisay jawaab togan kadib sanado khilaafi ah iyadoo la sheegay in Qaahira ay ka heshay damaanad qaadiyo ka imaanaya Ankara oo ku saabsan horumarinta xiriirka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo iskaashi lagu xoojinayo amniga qaranka Masar gaar ahaan koonfurta dalka iyo faylka Suudaan ila xogogaal ah ayaa sheegay in madaxweyne Erdogan uu ballan qaaday in uu gacan ka geysan doono xakamaynta xiisadda ka taagan Suudaan isla markaasna uu taageeri doono sharcinimada hay'adaha Suudaan wadahadallada amniga iyo difaaca ee u dhaxeeya Ankara iyo Qaahira ayaa sidoo kale si gaar ah diiradda u saaraya ka hortagga istiraatiijiyadda Israa'iil ee gobolka gaar ahaan Suuriya iyo Marayka Gaza xiriiradan cusub waxa ay sii xoogaysteen kadib tillaabooyin Turkiga uu qaaday taasi oo ka dhanayd xubno iyo ururo la xiriira ikhwaanu muslimiinka Masar oo ay ka mid yihiin in la xiray xarumo warbaahineed oo ay ku lahaayeen Turkiga joojinta in loo cusboonaysiiyo shakhsiyaad ka tirsan ururkaasi deganaanshaha iyo xadidaadda dhaqaaqyada dhanka siyaasadda ee ikhwaanu muslimiinka Turkiga tillaabooyinkan ayaa si weyn waxaa looga soo dhaweeyay Qaahira iyadoo loo arkay kuwa taageeraya dib u heshiisiinta labada dhinac si kastaba ha ahaatee ila dhanka diblomaasiyadda ayaa tilmaamay in wadatashyada Turkiga iyo Masar ay sidoo kale saameeyeen khilaafaad hoose u dhaxeeya Masar iyo qaar ka mid ah wadamada khaliijka gaar ahaan kadib markii xiisadda ka dhalatay weerarkii Mareykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka Iiraan ay korortay waxaa la sheegay in madaxweyne Sisi waa madaxweynaha Masar uu diiday in ciidamo Masaari ah oo u diro dalal ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Sacuudiga taas oo dhalisay ololayaal warbaahineed oo ka dhan ah mowqifka Qaahira ila ku dhow madaxtooyada labada dal ayaa xaqiijiyay in heerka iskaashiga u dhaxeeya Erdogan iyo Sisi uu gaaray heer aan horay loo arag iyadoo wakiilo heer generaal ah oo ka socda xafiiska militariga ee madaxtooyada Masar ay kulamo joogto ah kula leeyihiin Ankara mas'uuliyadda dhigooda ee dalka Turkiga halka saraakiil Turkiya ay si isdaba joog ah u booqanayaan Qaahira si ay u xoojiyaan iskaashiga difaac ee labada dal arrinta marka waxay noqotay arrin si weyn isha loogu hayo maxaa yeelay Masar laftigeeda waxay dareemaysaa culays weyn dhinac Suudaan ba ka gubanaysa oo daris la ah dhinac Liibiya ka gubanaysa oo daris la ah dhinacna Gaza ayaa ka gubanaysa oo daris la ah Israa'iilna waxay aad iyo aad hadda u wadaa qorshaha Israa'iisha weyn marka Masaaridu waxay dareemayaan khatar weyn Turkigana wuxuu isleeyahay Israa'iil Syria iyo isku ballaarin haddii Israa'iil Syria ay si xoogan u qabsato macnaheedu waxa weeye Israa'iil waxay joogtaa xuduudda Turkiga marka meeshan waxa yeelo waaweyn ayaa socda arrimo waaweyn xaaladan bariga dhexe ka socotana isbedel weyn ayay keentay dabcan wuxuu ku soo kordhay arrimahaasi waynu arki doonaa waa hagaag haddaba bariga dhexe marka laga tago Yurub baynu eegaynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tan iyo markii xafiiska uu qabtay wuxuu si weyn u dhaliilayay isbahaysiga NATO laakiin dhaliishiisu waxay xoogeysatay markii uu qarxay dagaalkii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan 28kii bishii February ee sanadkan markaas oo Donald Trump uu dalbaday NATO inay qayb ka noqoto sida hadalku uu yiri hawlaha sugidda amniga Mareykanka Hormuz iyo in la furo oo Iiraan xoog loo isticmaalo waxay kaloo taasi qayb ka ahayd in Israa'iil iyo Mareykanku ay doonayeen wadamada NATO inay ku soo biiraan dagaalka laakiin NATO arrinkaasi way ka cagajeeday hadda wadamada Yurub waxay ka fakarayaan samaynta NATO-da Yurub waa haddii Mareykanka uu ka baxa meesha haddaba warbixin xasaasiya oo arrimahan la xiriirta waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Cabdifataax Mawlid Xaaji Cabdi qorshe gurmad oo loogu talagalay NATO-da Yurub iyadoo la filayo suurtagalnimada ka bixitaanka Trump wargeyska The Wall Street Journal ayaa warbixin gaar ah oo u daabacay wuxuu ku sheegay in dalalka Yurub ay dardar geliyeen qorshe gurmad ah oo lagu xoojinayo doorka Yurub ee NATO
iyadoo la filayo suurtagalnimada in Maraykanku ka baxo isbahaysiga haddii Donald Trump uu go'aankaas qaato. qorshahan oo si aan rasmi ahayn loogu yeero NATO-da Yurub ayaa ujeedkiisu yahay in dalalka Yurub ay qaataan hoggaan ballaaran oo ku dhex jira qaab dhismeedka isbahaysiga isla markaana si tartiib ah u buuxiyaan awoodaha uu Maraykanku bixiyo. mas-uuliyiinta ku lug leh wadahadallada ayaa adkeeyey in ujeedadu aysan ahayn in la abuuro isbahaysi cusub balse ay tahay in la ilaaliyo awoodda ka hortaga military ee ka dhanka ah Ruushka iyo in NATO ay sii ahaato mid wax ku ool ah xitaa haddii taageerada Maraykanka ay yaraato ama gebi ahaanba joogsato. warbixintu waxay soo xigatay madaxweynaha Finland Alexander Stubb oo sheegay in wareejinta culayska difaaca ee Maraykanka laga wareejinayo Yurub ay horey u bilaabatay ayna sii socon doonto isaga oo carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in isbeddelkani u dhaco si nidaamsan si looga fogaado firaaqo amni oo lama filaan ah. qorshayaasha ayaa markii ugu horeysay la diyaariyay sanadkii hore balse shaqadooda ayaa si weyn u dardargashay kadib hanjabaadaha Trump ee ka bixitaanka NATO iyo hadalladiisa adag ee ka dhanka ah xulafada iyo xiisadaha la xiriira hamigiisa Greenland. arrimahan ayaa sare u qaaday walaaca Yurub ee ku saabsan mustaqbalka isbahaysiga. isbeddelka Jarmalka isbeddelka ugu muhiimsan ayaa ka yimid Jarmalka oo muddo dheer ka soo horjeeday madax bannaanida difaaca Yurub arrin ay Faransiisku muddo dheer ku baaqayeen kana doorbiday ku tiirsanaanta daladda amni ee Maraykanka. si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha Jarmalka Friedrich Merz ayaa bedelay mowqifkiisa isagoo shaki ka muujiyay isku halaynta Washington gaar ahaan marka loo eego dagaalka Ruushka iyo Ukraine. ilo xogogaal ah ayaa sheegay in Merz uu rumaystay in Trump uu diyaar u yahay inuu ka tanaasulo Ukraine isla markaana siyaasadda Maraykanka ee NATO aysan mar dambe ku dhisnayn qiyam cad. isbeddelka Jarmalka ayaa horseeday is-afgarad ballaaran oo dhex maray dalal muhiim ah sida Faransiiska, Britain, Poland iyo dalalka Nordiga si ay u sameeyaan isbahaysi doonaya oo ku dhex jira NATO kaas oo diiradda saaraya xoojinta awoodaha difaaca Yurub iyada oo aan gebi ahaanba laga go'in isbahaysiga. warbixintu waxay sheegtay in qorshayaasha Yurub ay hadda galeen marxalad hirgelin iyadoo diiradda la saarayo qodobadan hoggaanka cidda maamuli doonto nidaamyada difaaca hawada iyo gantaalada shabakadaha saadka sida loo sugi doono sahayda iyo xoojinta ciidamada ee Poland iyo dalalka Baltiga tababarada gobolka dib u habaynta shabakadaha saadka iyo in Yurub ay hogaamiso tababarada military ee waaweyn. xoojinta difaaca Yurub qorshayaashu sidoo kale waxay ka mid yihiin qorista ciidamada dib u soo celinta nidaamka askaraynta ee dalal qaar madax bannaanida tiknoolajiyadda yareynta farqiga u dhaxeeya awoodaha Yurub iyo Maraykanka gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah maraakiibta quusa awoodaha hawada sare iyo sahanka shidaalsiinta hawada iyo gaadiidka military. caqabadaha jira qaab dhismeedka NATO ayaa si weyn ugu tiirsan hoggaanka Maraykanka laga bilaabo saadka iyo sirdoonka ilaa nidaamyada digniinta hore iyo ka hortagga nukliyeerka. weli ma jiro taliye military oo Yurub ah oo leh miisaanka iyo sumcadda lagu bedeli karo jagada taliyaha guud ee ciidamada isbahaysiga taas oo soo jireen ahaan uu haysto Maraykanku. mas-uuliyiinta Yurub waxay qirayaan in bedelidda awoodaha qaarkood gaar ahaan sirdoonka iyo ka hortagga nukliyeerka aysan suurtagal noqon karin muddada gaaban. waxaa sidoo kale socda dood xasaasi ah oo ku saabsan suurtagalnimada in daladda nukliyeerka Faransiiska loo ballaariyo dalal kale oo Yurub ah. u socdaalka NATO-da Yurub isbeddelka difaaca Yurub ayaa durba bilaabmay iyadoo jagooyin badan oo hogaamineed oo NATO ah loo wareejinayo taliyayaasha Yurub isla markaana ciidamada Yurub ay hogaaminayaan tababaro military oo waaweyn gaar ahaan meelaha u dhow xuduudda Ruushka. inkasta oo dadaaladan ay socdaan warbixintu waxay xustay in Yurub ay weli ka fog tahay inay gaarto madax bannaani difaac oo buuxda. si kastaba ha ahaatee jihada guud waa mid cad. Yurub waxay si tartiib ah ugu sii socotaa inay qaadato mas'uuliyad weyn oo ku saabsan ammaankeeda iyadoo dunidu si degdeg ah isu bedelayso. Cabdifataax Mariid Xaaji Cabdi, HBN Online TV. waatahay Cabdifataax aad buu u mahadsan yahay warbixintaas halkaas aynu kaga gudubno. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay xaaladda bariga dhexe gaar ahaan heshiiska xabad joojinta ee looga dhawaaqay waddanka Lubnaan walow lagu soo warramayo saaka iyo xalay inay dhaceen weeraro intaan idin soo gudbin
macluumaadkaas iyo wararkii ugu dambeeyay amuurtan la xiriira iyo qodobo kale aynu ku hakanno qadar xayeysiina waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadana waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida youtube-ka facebooka twitterka iyo telegramka warbixinno qoraal ah warar fahlooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna waa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka hagaag arrimihii xabajujinta Lubnaan ayaa faahfaahin dheeraad ah ka soo baxaysa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay heshiis xabajujina oo Israa'iil iyo Lubnaan ay gaareen kaas oo 10 maalmood soconaya dhinaca kale wuxuu sheegayaa inay kulmi doonaan madaxweynaha waddanka Lubnaan iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu haddaba arrintan iyo wixii ugu dambeeyay iyo mowqifka Iiraan dhankeeda iyo Xisbullah oo xalay iyana war soo saartay arrimahan la xiriira haddii aynu ku sii soconno heshiiskan xabajujinta ayaa Trump wuxuu sheegay in uu dhacay kadib wadahadal qadka telefoonka uu kula yeeshay madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuu xaqiijiyay in labada nin maalmo gudahood ay ku kulmi doonaan aqalka cad haddii taasi ay dhacdo waxa ay noqon doontaa kulankii ugu horeeyay ee heerkaasi ah oo u dhaxeeya labada dhinac oo dagaal ku jiray tan iyo 1948 waa markii la aasaasay Israa'iil Xisbullah oo dagaalka ku soo biirtay labadii bisha March ayaa muujisay in ay diyaar u tahay hirgelinta xabajujinta laakiin waxay sheegtay inaysan aqbalayn waxa la yiraahdo hubka dhigis waxay kaloo sheegtay Israa'iil inaysan u isticmaali karin xabajujintan in ay weerar ka fuliso gudaha waddanka Lubnaan iyadoo ku marmarsiyoonaysa inay hesho xorriyad weerar ay ku fuliso Trump ayaa waxa uu sheegay in xabajujintan ay tahay mid cajiib ah isagoo xusay in Aoun iyo Netanyahu ay u badan tahay inay ku kulmaan aqalka cad ku dhawaaqista Trump ayaa timid labadii maalmood ugu dambeeyay kadib markii Iiraan ay si adag ugu xirtay wadahadal dambe oo ay yeeshaan Mareykanka iyo Iiraan xabajujin ka hirgasha waddanka Lubnaan sidoo kale dhowr maalmood ka hor waxaa waddanka Mareykanka kulan ku yeeshay safiirada Lubnaan iyo Israa'iil dhinaca kale xildhibaan ka tirsan Xisbullah oo baarlamaanka waddanka Lubnaan ku jira Ibrahim al-Masawi ayaa isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee AFP wuxuu sheegay in Xisbullah ay u hoggaansami doonto xabajujinta si taxaddar leh iyo shardi leh wuxuuna yiri waa in si buuxda loo joojiyaa colaadda naga dhanka ah Israa'iil wuxuu yiri waa inaysan ka faa'iideysan in dalal qorshaysan ay fuliso inta lagu jiro xabajujintan Netanyahu ayaa isna wuxuu sheegay in Israa'iil ay ogolaatay xabajujin 10 maalmood ah laakiin wuxuu yiri waxaynu ku sii jiri doonaa dhulka hadda aynu ka haysano Lubnaan oo 10 kiiloomitir sida hadalka uu yiri wuxuu tilmaamay in Israa'iil ay dejisay laba shardi oo la xiriira xabajujinta oo ah in Xisbullah hubka laga dhigo iyo in la gaaro heshiis nabadeed oo joogto ah oo ku salaysan awood wasi hadalka uu dhigay dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan ayaa ku baaqday in Israa'iil si buuxda ay uga baxdo dhulka ay ka haysato koonfurta Lubnaan iyo in la sii daayo maxaabiista ay haysato iyadoo intaa ku dartay waxaynu adkaynaynaa muhiimadda ay leedahay soo noqoshada dadka reer Lubnaan ee barakacay iyo dibudhiska lala kaashanayo beesha caalamka dhankiisa danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Mark Walters ayaa waxa uu qoraal uu soo dhigay baraha bulshada uu ku sheegay in Trump wasadalku uu yiri uu gaaray wax cidna aysan ku guuleysan 40 sano isagoo xusay in Israa'iil iyo Lubnaan hadda isku arkaan in ay ku jiraan hal dhinac oo xisaabta ah taasi oo ku tilmaamay inay tahay guul weyn mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegaya in sida ku cad shuruudda heshiiska xabajujinta ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Lubnaan Israa'iil ay ilaashan karto xaqa ay u leedahay inay qaado dhammaan tilaabooyinka laga maarmaanka ah ee isdifaacidda iyadoo la fulin doono markaasi iyadoo aan la fulin doonin weeye wax hawlgalo militari ah oo weerar waaxda amuraha dibadda ee Mareykanka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay Israa'iil inay xaq ay u isticmaali karto waqti kasta si ay uga hortagto weeraro dhinaca kale shabakadda Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa waxay ka soo xigatay mas'uul Israa'iili ah oo sheegaya in
xabajoojintan qofka ka shaqeeyey uu yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Shabakadda ayaa waxay soo xigtay ilo wareedyo ku dhow madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun oo sheegaya in xabajoojintan ay tahay markaasi mid u baahan in la sii xoojiyo si haddii kulan uu dhex marayo Netanyahu iyo madaxweynaha Joseph Aoun ay ku xiran tahay in xabajoojinta ay sii jirto. Dhinaca kale waxaa la sheegayaa in Lubnaan aysan aqbali doonin ciidamo Israa'iiliin ah oo ku sugnaanaya koonfurta Lubnaan. Inkastoo xabajoojinta la gaaray, wakaaladda wararka ee waddankaasi ee Lubnaan magaceeda loo soo gaabiyo NNA ayaa waxay sheegtay warow xabajoojintu ay dhacday haddana habeennimadii xalay ilaa iyo saaki waa berigii ciidamada Israa'iil in madaafiicda goobta ay ku garaaceen dhowr deegaan oo ku yaala koonfurta Lubnaan sida magaalooyinka Khiyaam iyo sidoo kale magaalada Dibna. Waxaana la sheegayaa in weerar kale laga soo wariyey dooxada galbeed ee Bakhaa, waxaana warku taasi ku darayaa in la arkayay diyaarad nooca sirdoonka oo ciidamada Israa'iil ay leeyihiin oo ku sugnayd aagaga Rashaya iyo sidoo kale deegaanka Jabal al-Sheikh. Waxaana la sheegay tan inay tahay qodobada Xamaas raalli ahada Xisbullah ay diidanayd ee ku aadana in Israa'iil ay u hesho xorriyad sida ay doonto inay uga howlgeli karto koonfurta Lubnaan. Waa hagaag arrintu marka hadda waxay u muuqanaysaa in la isku soo dhawaaday shuruudihii Iiraan ee ku xirtay kulanka labaad midii koowaad Mareykanku waa fuliyey. Arrinka marka Hormuus ayaa weli taagan. Dabcan wuxuu ku soo kordhay arrimahaasna waynu arki doonaa. waa tahay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad u hesho wararka iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi